qolada kale ee Quraysheed iyaguna way ducaysteen sa Imaam Ahmed uu musnadka ku wariyay Abu Jahl ayaa duceeyay dabadeetna markaas wuxuu yiri Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhu alghadaa ilaahayow kaayaga markaas waxa weeyaan raximkii jaray qaraabadii ee la yimid waxaan hore loo aqoon nabiga sallallahu alayhi wasallam markay soo gaadhay warka oranaya Quraysh oo ciidan tiro badan wadata ayaa soo baxay walibana ciidankaasi markaas waxa weeyay doonayeen inay Badr yimaadaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu bilaabay inuu asxaabtiisa la tashado sida caadada rasuulku ay ahayd sallallahu alayhi wasallam waxa Bukhari iyo Muslim iyo qeyrkood markaas wax way ay wariyeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam talooyin kala duwan oo asxaabtiisa uu weydiiyay ama se wax way ay kula taliyeen waxa Bukhari oo saxiix ku soo saaray min xadiis Abdullah ibn Mas'ud inuu yiri laqad shahidtu من مقداد بن عمرو رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحن حاضر موقف صحابي يقول أنشري مقداد بن عمرو ومركز وحويا سميي وإن أنا أهان لها قفك سميي أما هذا الكائري أن كتشعل أي وحك كستو مركز وحويا لبربر اليوم وعلى رسولك أيوي من مقداد بن عمرو رضي الله عنه isagoo marka habaaraya Quraysh dana rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ya rasuulallah wallahi la naqulu laka kama qalat banu israa'ila li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun rasuulki ilaahay baan ku dhaaranay ku oran mayno sidii reer bani israa'il nabi Musa ay ku yiraahdeen adiga rabbiga israaco soo dagaalama annaguna halkan baanu sii fadhiyeynaa oo idinku sii sugaynaa sida annagu kugu oran mayno ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك وحكوري مركزي هسي أشياء أنه ميدكتاد يبيح هذا حق هوري حق دنبابا وأنه كتقالمنا ووليبا مركز أنه كقرب تاقنانينا وكذلك مسلم وحصيحة قصص ساري رسول صلى الله عليه وسلم مركو لو تشاركوا عليي أشيروا علي أيها الناس تضعوا مركزي لتلي يوم حيارنتو إذن لتهي وحا كعي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دبديتنا مركا وو هدلي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي هو كتشيستي وهذا الكيسي مركا مسير راعين هذا عمر الخطاب كعي هذا مركا عمر الخطاب مركو هدلي رسولك هو كتشيستي دبديتنا وحا كعي سعد بن عبادة رضي الله عنه مركا سوحر يا رسول الله والله لو أخذت بنا هذا البحر لخضناه معك ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا ورسولك الله إلهي بان كل دارتي هدي بدا سي مركاسينا نقلان نغا دونتو ود بدا سي غشو وانو كula galayna anaguna sidaasoo kale hadaad naga dalabto inaanu fardaha yaga erino ilaa meesha barkul ghimaad la yiraahdo meel dagaal ka dhacay hadaad noo dirto waa tagaynaa uu rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسولك أرين كاس أيو كفر حي وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه أي إسنا رسولك الله صلى الله عليه وسلم سروايات كقار كذا صحيحة كبحسني أي تلمامين رسولك صلى الله عليه وسلم وحكول لكأنك تريدنا يا رسول الله رسولك لو حلق مودين أنك نوتشيدو أنصارنا دوتشيدو مهاجرين على دوتشيدين واي مهاجرين وحكم ذا أبو بكر الصديق يا عمر بن الخطاب ورجي يقوم مهم سنة ومدني محمد كم ذها هذا أمر كي هذا رسول صلى الله عليه وسلم هو كتشيستي مركا وحي فهمين أنصاري إنه رسولك إيجا دوني إنه هلان وإيجا مركا أرين كودا ودونيو ورسولك قال أنا نوتشيدو أيام مركا سوحة ويا ننفليا ويقول يا رسول الله لقد آمنا بك واتبعناك وصدقناك رسولك قال لو أنا كرميني وأنا كرعني وركاغنو إنه دبيهي أيانو مركز وحوي هرو قادني والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا هذا مركز رسول قال لو بدأ سوبا بحرين تقشو ونكل قلينا ماشي برك الغماد إلى هذا نودرتنا واتقينا أول رسول قال له
deedna markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu u raaciyey wamaa nakrahu an talqaa binaa caduwana gada ma karaahiyeysanna beritoole inaad cadowgayaga naga horgeyso oo markaas waxa weeyaan aanu la kulanno fa inaa suburun fi liqaa suduqun fi liqaa suduqun fi lxarb wuxuu ku yihi markaasi waayo waxaanu nahay dad markay la kulmaan cadowgooda u sabro u adkaysta dagaalkana ka dhab sheega oo markaas waxa weya aan cabsanin yaa rasuula allahi sil xabla man shi'ta waqtac xabla man shi'ta wacaadi man shi'ta wasaalim man shi'ta wakhud min amwaalina maa shi'ta wadac maa shi'ta fawallaahi aladii akhadtahu mina axabu ilayna mima tarakt wuxuu ku yihi rasuulka allow xadhigga ciddaa doonto xidhiidhi ciddaa doontana xadhiggeeda jar ciddaa doonto heshiis la gal ciddaa doontana la colaytan xoolaha iyaga waxaa doonto ka qaado waxaa doontana ka tag ilaah baan ku dhaartaye xoolaha iyaga inta aad qaadato ayaanu ka jecellahay markaasi waxa weeyaan inta aada nooga tagto deedna rasuulka sala allahu calayh wasalam hadallada markay ku yidhaahdeen asxaabtiisii ay sidaa u dhiirigeliyeen rasuulku sala allahu calayh wasalama dagaalkii markaas waxa weeyaan waa ku dhiiraday inuu markaas waxa weeyaan xaggii qurayshadu kaco nabigu sala allahu calayh wasalam marka meeshii beder lo odhan jiray uu soo degay habeennimadii aroornimadeeda uu dagaalku dhici doono arrimo markaas waxa weeyaan dhowra ayaa dhacay waxaa arrimaha dhacay markaas waxa weeyaan ka mid ahaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku soo dejiyey roob uu markaas waxa weeyaan ku daahirinayo isla markaasina nucaas iyo hurdo aroornimadii markaas waxa weya ilahay kusoo dejiyey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay id yugashiikum annucaasa amanata minhu wayunazilu calaykum min alsamaa'i maaan liyutahirakum bih ilaahay subxaanahu watacala wuxuu tilmaamayaa markuu rabbigiin idinku soo dejiyey nucaaska iyo markaasi waxa weeyaan hurdada isla markaasina uu roob samada idinkaga keenay iyo biyo idinku soo dejiyey liyutahirakum bihi si markaasi waxa weya ilahay idinku nadiifiyo isla markaasina rijsiga shaydaanka markaasi idinka kaxeeyo wayuthabita bihi alaqdaam isla markaasina lugihiina hoostiinana uu ku sugo oo boodhkii markaasi meeshaasi ay lahayd ayuu roobkaasi markaas waxa weeyaan ka nabay sidaasoo kale nucaaska soo degay isagase markaasi riwaayaadka qaarkood ku sugnaatay sida xadiidka abi talxa radia allahu canhu uu tilmaamay nucaasku wuxuu soo degay iyagoo safkii dagaalka ku jira oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kusoo dejiyey hurdada amase waxa weyaan luladaasi isagoo ilaahay siduu sheegay kaga kaxaynaya cabsidii markaasi cadowgooda ka haysay isla markaasi habeenkaas rasuulku sala allahu calayh wasalam waa ducaynayey oo markaasi waxa weeyaan habeenkaa ma seexanin sida xadiidkii caliy bni abi aalib radia allahu canhu ku sugnaatay wuxuu yihi markaasi habeenkii beder mid annaga naga midoo taagnaa oo tukanayay ma jirin rasuulka ilaahay uun mooyaane oo markaasi asxaabtiisa u ducaynayey isla markaasina cid farda naga wadatay waxaa jirtay buu hi markaasi saxaabiga la yidhaahdo miqdaad ibnu camr radia allahu canhu nabigu sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa markaas waxa weeyaan isaga iyo asxaabtiisao isku duuban ayaa markaas waxa weeyaan waagii u bariyey markii waagi uu bariyey ee labadii ciidan markaas waxa weeyaan ay iska soo ag dhowaadeen qolo kastoo labada ciidan ka midiba way ducaysatay oo duca markaas waxa weeyaan ayay ku hadleen oo markaas waxa ay ku ducaysteen nabigeenu sala allahu calayhi wasalam sida muslim uu saxiixa ku wariyey kadalika bukhaari laftiisuna riwaayaadka qaarkood uu ku wariyey asxaab kala duwan laga wariyey sida cumar khadaab radia allahu canhu iyo cabdillahi bni cabaas wuxuu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu lahaa allahuma anjiz lii ma wacadtanii allahuma in tahlik hadihi alcisaaba laa tucbadu cala alard rasuul ilaahayow ii oofi ballankii markaasi aad ii qaaday haddii intan yaree maanta halkan taagan dagaalkaasi ay ku halaagsamaan oo la laayo dhulka dushiisa dib lagugu caabudi maayo waayo dee intani waa intii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa difaacaysay ee wakhtigaa dhulka ilaahay dul taagnayd dabadeetana rasuulku sala allahu calayh wasalam ducadaas ayuu aada ugu celcelinayey ilaa mar intuu galay markaas waxa weeyaa meel yaroo taandho yaroo u lahaa dabadeetana uu rasuulku gacmaha kor u taagay isagoo markaa qiblada qaabilsan gacmihiisana uu kor u qaaday ilaa garabkiisa go-iisii uu ka dhacay oo abubakar asidiiq radia allahu canhu oo la joogay intuu marada u soo celiyey
وكو يري مركاسي كفاك مناشدتك لربك رسول قال انت سيا كغفلا إلهي سبحانه وتعالى بلن كيس إنه كو في هذا مركاسي كدونيسو انت رسول قال way kugu filantay inta iskaga daa dadna rasuulku in yar ayuu yar foorsaday oo dadna madax ayuu kor u qaaday dadna wuxuu ku yiri abshir ya Abu Bakar oo bushaarayso hada Jibril akhidh bi'inani farasi ala thanayahu an-naq'a oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam kan waa Jibril oo faraskiisa hogaankiisa haya oo waliba markaas boor ku yaalo ayuu rasuulku alayhi salatu wassalam qolada kale ee Quraysheed iyaguna way ducaysteen sa Imaam Ahmed oo musnadka ku wariyay Abu Jahl ayaa duceeyay dabadeed markaas wuxuu yiri Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhu alghadaa Ilaahayow kaayaga markaas waxa weeyaan rahimkii jaray qaraabadii ee la yimid waxaan hore loo aqoonin fa ahinhu alghadaa Ilaahayow saaka halaag oo markaas waxa weeyaan dabargo hadalkaasi markuu yiri waa ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamay in tastaftihu faqad jaaءakum al-fath waxa weeyaan hadaa dalabteen in la idin kala xukumo idinka iyo ciidankiina kale fatxiga iyo kala xukunkii waa idin yimid Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa ogaa markaas cid dulmi la timid ta qaraabada goysay ee dadkii qaraabadooda magaaladoodii ka eriyay isla markaasina la dagaalamay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markii uu asxaabtiisa la tashanayay muxuu talow muhaajiriinta raayigooda markaasi uu ictibaarin waayay ihtimaam u siin waayay laakiin ansaarta rasuulku uu dooniyay waxa culimadu leeyahay laba arimood ayuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ansaarta raayigooda u dooniyay qodobka koobaad ee uu dooniyay ciidanka inta ugu badan ee ansaar ay ahaayeen sida Bukhari oo saxiix ku wariyay min xadiis al-Bara ibn Azib wuxuu yiri kana al-muhajiruna nifan wa 60 rajulan waxay ahaayeen buuri markaasi muhaajiriintu maalinkaasi dhowr iyo 60 nin bay ka koobnaayeen ansaartuna wuxuu wal ansar kaanu nifan wa 40 wa 200 waxay ahaayeen dhowr iyo 40 iyo 200 ashan 200 iyo dhowr iyo 40 nin ay ahaayeen marka iyaga ayaa ciidanka u badnaa taa rasuulku waa uu weydiinayay ra'yigooda qodobka labaad muhaajiriintu iyagu dhulkoodii bay ka yimaadeen isla markaasina way soo hijroodeen inay rasuulka har iyo habeen garab taagnaadaana de wax way sababtay soo hijroodeenba iyagu markaa inay rasuulka ka haraan dagaalkan lama tasawiraynin oo lama sawiranaynin laakiin ansaartu rasuulka hore ayay bay'atul aqaba balan ula galeen balankay la galeenna wuxuu ahaa inay ku raadeen rasuulka oo anagu bari baanu ka nahay wixii ku asiibay ku soo gaadha magaalada Madiina wixii ka baxsan laakiin magaalada Madiina marka noogu timaado wixii nafteeda iyo awlaadda iyo dumarkayga aanu ka difaacayno adigana waanu ka difaacayna laakiin magaalada Madiina wixii dibadeeda anagu shaqo kuma lihin maadaama rasuulka balanka hore ula galeen rasuulkuna markii dagaalkan uu qabsaday una magaalada Madiina gudaheeda ku jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam ra'yigooda ayuu raadiyay aroonimadii markii waagi bariyay labada qoloba markaa saf ayay galeen ilaahayna subhanahu wa ta'ala soo dagaalkaas u dhaco qoladana ilaahay subhanahu wa ta'ala indhahooda kuwi kale ayuu ku yareeyay kuwana kuwa kale ayuu ilaahay ku yareeyay labada qolob waxay u arkeen qoladan qolo kooban inay tahay oo ciidan yar oo kooban inay yihiin si ay dagaalka ugu dhiiradaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa waxa weeyaan saf ayuu istaajiyay waliba safkana waa toosinay markaas waxa weeyaan riwaayadka qaar kood ku soo aroortay rasuulku sallallahu alayhi wasallam safkii markii uu toosiyay awaamir buu rasuulku asxaabtiisa siiyay sida Abu Daawud sunanka ku wariyay min xadiisi Abi Usayd al-Sa'idi rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri idha akthabukum farmuhum bin-nabl wala tasullu as-suyuf hatta yaghshawkum wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ciidanka gaaladu markay idin soo weeraraan ee dagaalka soo qaadaan leebabka ku gana oo leebabka markaas waxa weeyaan ka horgeeya seeftana ha ula bixina ilaa iyagu markaas waxa weeyaan ay soo gaadhaan oo in yar ay idin soo jirsadaan inta laakiin soo socdaan leebka ka horgeeyay rasuulku alayhi salatu wasalaam wakadalika rasuulku sallallahu alayhi wasallam markay ciidankii soo dhawaadeen laba arimood ayuu markaas waxa weeyaan sameeyay mid ahaan wuxuu sameeyay inuu markaas waxa weeyaan amray in ciidanku ku kacaan dagaalka
oo seefaha marka ay ula baxaan oo iska dhiciyaan ciidanka gaalada ah sida markaas waxa weeyaa muslim oo saxiixa ku wariyay min xadiisi Anas ibn Malik wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ukacanno balladkeedu uu dhulka iyo cirka leeyahay dadna saxaabi la oran jiray Umayr ibn Humam radiyallahu anhu oo hadalka rasuulka maqlay ayaa yiri jannatan arduha as-samawati wal ard rasuulka alla waxaan u kacayna janno balladkeedu dhulka iyo cirka leeyahay markaas rasuulku yiri nacam qaala bakhin wuxuu yiri wallahi waa arrin la yaabo rasuulku wuxuu ku yiri maxaa kugu kalifay inaad bakhin tiraahdo rasuulku wuxuu ku yiri Umayr rasuulka alla wax kale uma oranin illa rajaa an akuna min ahliha illa anigoo rajaynaya un mooyaane inaan ehelkeeda ka mid noqdo dadna rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam anta min ahliha jannada ehelkeeda ayaad ka mid tahay dabadeetana wuxuu jeebkiisa ka soo saaray waxoogaa timir oo ku haystay dhowr mir ayuu ka cunay kadibna intii kale wuxuu yiri wallahi intan haddaan sii noolaado intan cunayo waaba nolol dheer dadna uu iska daadiyay dadna markaas waxa dagaalka iyo hore ka galay ilaa iyo la dilay saxaabigaasi radiyallahu anhu wa ardaa markii ciidankaas markaas waxa weeyaan soo dhawaadeen rasuulku qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardu ciidankii muslimiinta iyo ciidankii gaalada markaas waxa weeyaan isku kaceen wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Ali ibn Abi Talib amray inuu cantooba ciida u dhiibo sida markaas waxa weeyaan Imam Tabarani iyo غيركii ay wariyeen min xadiisi Abdullah ibn Abbas wuxuu rasuulku Ali ibn Abi Talib naawilni kaffan min al-hasa waxaad ii dhiibtaa markaas waxa weeyaan cantoobo ciida fanaawalah dadna rasuulku waa u dhiibay sallallahu alayhi wasallam dadna rasuulku wajigii cadowga ayuu ku shubay ku daadiyay mid iyaga ka mid ma jirin ilaa ciidi indhaha ay markaas waxa weeyaan ka gashay waa ka ilaahayna quraan ku tilmaamay wama ramayta id ramayta walakin Allah rama nabi maxamed markaad ciida ganaysay adigu maad ganin laakiin ilaahay baa ganay oo indhahooda wada gaarsiiyay dhamaantood dadna markaas waxa weeyaan dagaalkii ayaa bilaabmay dagaalkaasi markuu bilaabmayna arrimo markaas waxa weeye aad iyo aad u muhiima ayaa dhaxdiisa ka dhacay asxaabta rasuulkuna butuulaad iyo markaas waxa weeye waxay muujiyeen geesinimo fara badan bal hadda qaababka markaas waxa weeyaan dagaalkaasi u dhacay iyo waxyaalaha asxaabta rasuulku ay sameeyeen iyo geesinimadii halka ka dhacday wax kamid ah insha Allah ta'ala waxaan ku arki doonaa xalqadan ku xigta tan maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk